maanta dalkeena waxaa hor yaalla arrimo muhiim ah oo ay tahay inaan si wada jir ah dhammaanteen inaan u address gareyno. arrinta koowaad ee ina hortaagan maanta ee aan raba inaan laba kelimo ka dhaho waa arrinta abaaraha. waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan inaan la hadlo maanta oon idhaahdo waddankeena waxaa la sheegay oo hay-adaha arrimahaas u xilsaaran oo dhan ay qoreen 1 milyan oo qof oo Soomaaliya ayay abaartan barakicisay oo qaxooti ah waddankooda ku ah ama barakacyaal ku ah. 1 milyan oo qof. waad garan kartaan 1 milyan oo qof oo guryahoodii ka soo baxay oo barakacyaal ah oo qoraxda iyo kulaylka jira waddankeena maanta barakacyaal ku ah oo biyo haysan oo baad haysan duruufta ay ku nool yihiin waad garan kartaan. shalay waxaan xil wareejin u sameynayay wasaaradda waxbarashada. waxay noo sheegeen 3 milyan oo caruur Soomaaliyeed ah oo xilligii waxbarashada gaadhay oo bannaanka ka joogta waxbarashada inay joogaan. marka waxaad garan kartaa 3 milyan oo bannaanka jooga oo inay waxbartaan ay ahayd waxay noqon doonaan dhowaan. adigu isweydii 1 milyan oo ilaahay uu subxaanahu wa tacaala ka sokow aan cid u maqan jirin oo baahi iyo oon la ilxunna bal adigu isweydii. dadkaas waxay inooga baahan yihiin bal horta marka koowaad in aan u ducayno haddaan Soomaali nahayna aan ilaahay u laabanno oon ilaahay u toobad keenno si uu ilaahay uu roob inoo siiyo. faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara yursil الsamaaءa calaykum midraara. haddii aan toobad keenno ilaahay wuxuu inoo sheegayaa walow ana ahla اlqurى aamanuu waاtaqow lafataxnaa calayhim barakaati min الsamaaءi wاlard. marka ilaahay wuxuu inoo sheegayaa haddaan toobad keenno in abaartaasi ay harayso oo roob imaanayo oo la dhargayo la barwaaqoobayo. sidaa darteed wuxuu ma adka waa wax tooba un ku xiran. marka aan toobad keenno dad muslimiin aan nahay taa waan u baahannahay. ayaga inaan dadkaas u ducaynana waan u baahannahay. waxaa kaloon u baahannahay halkan maanta waxaa jooga beelweynta sharafta leh ee mudulood baa dadkan isugu yeedhay Soomaaliyeed inay intan oo dadaala sameeyaan. waxay muujinaysaa karaamadooda iyo sharaftooda iyo deeqsinimadooda ayay muujinaysaa. dadka Soomaaliyeed bay sambal ka yihiin. dadka Soomaaliyeed waxyaabaha lagu yaqaano waxaa ka mid ah deeqsinimo. mar haddaynu deeqsiyiinna 1 milyan 10 milyan dhowr iyo 10 milyan baa laynagu qiyaasaa. kolba qofba wuxuu sheegaba waa horaa tiro saxa inoogu dambeysay. 1 milyan waan quudin karnaaye uma baahnaa inay gacmo dadka lagu horsadaane aan u gurman oo waxa aan haysanaa wax kasi oo dadka muslimiinta ilaahay wayuطcimuuna aطcaama calaa xubbihi ilaahay yidhi oo dadka muslimiinta xoolahay bixiyaane aan xoolaha bixinno walaalayaal. dhaqankeena Soomaaligana way ka mid tahay ee wanaagsan. marka kaa aan xoojinno deeqsinimada oo aan dadkeenna wax u tarno. 1 milyan alla ka sokow innaga inay sugayaan. fariintaasi gaar ah waxaan ugu dirayaa ganacsatada Soomaaliyeed, culimada sharafta leh ee Soomaaliyeed oo ayagu ah dadka khayrka dadka ku hogaamiya si saxa diinta ugu bara ee ugu sheega inay masaajidda iyo jimcooyinka inay dadka baraarujiyaan oo ay ku baraarujiyaan dadka in la caawiyo
ayaan ka codsanayaa. waxaan si gaara ayagana uga codsanayaa oo meel aysan ayagu u dhaqaaqinba hadda ka hor dadka Soomaaliyeed ayna guulo badan ka gaarin gabdhaha Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed intaba inay gurmadaan oo si dhab ah dadkaas aan isugu dayno inaan wax u qabano. waxaa kaloon halkan fariin uga dirayaa qurba joogta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. wax badan baa ay badbaadiyeen, wax badan bay runtii soo dadaaleen. waxaan ka codsanaynaa inay ogaadaan maantana dadkeenu 1 milyan oo ka mid ihi inay duruuftaa ku nool yihiin. sidaa darteed inay dadaalaan. xadiis baa jira nabiga calayhi salaatu wasalaam laga wariyey oo uu leeyahay ma rumaynin ilaahay qof asagoo dharagsan waagu u baryey, qofka jaarkiisa ana ee ku dhowna uu baahan yahay asagoo og, weliba asagoo og, adigoo og inay kan dariskaaga yihi uu baahi la ilxun yahay uusan xalay la seexanin inaad adigu iska dharagtaa. diinteennu ma ogola. marka waxaan u baahannahay dhaqankeenuna ma ogola oo Soomaali haddaan nahay dhaqankeenu ma yeelayo. waxaan u baahannahay marka arrintaa walaalayaal inaan wax ka qaban. intaa abaarahan uga gudbayaa. qodobka labaad aan rabo inaan ka hadlo waxaa weeye oo dhibaatada ugu weyn ayna waajahsan ka mid a waa amniga. qof kastoo Soomaaliya haddii la weydiiyo la yidhahdo maxaa kuu daran, dhibaatada ugu weyn ee ku haysata maxay tahay? amnigu dhih. amni baa haysta. horeyna waa loo sheegay oo waxaa la yidhi rag gobashii waa amni, waa nabadgeliyo. qofku wax kastuu haysto, si kastuu u nool yahay, hadduusan mar nabadgelyo haysanin nolosha uma dhadhanto, nolol kharaar buu ku nool yahay. sidaa darteed magaalada Muqdisho amnigeedu, bal meelaha kale aan isugu nimaadne, intay askari qori wata u baahan tahay waxaa ka badan intay gabadh u baahan tahay. sidee u ahay taas? gabadha guriga joogta waxaan uga baahannahay. askarigu dee qori buu wataa, waxaaba laga yaabaa hadduu maanta o dhan magaalada dhex socdo inuusan cadowba arag, laakiin cadowgu gurigu ku jiraa. guriga ma galayo, guriga gabadh baa la joogta ninkan. waxaan rabnaa inay gabadha guriga ka saarto ilaa la gaaro inay gabdhaha Soomaaliyeed cadowga guryahooda ka saaraan. nabad lama helaayo. dadka Soomaaliyeed way og yihiin cadowga guryahaynu ku jira, way og yihiin. marka guryaha ka soo saara. haddaad guriga waa uu ku jiraa aad dhahdo, guriga wuu ku jiraa haddaad dhahdo, waa laga soo saaray, dawladdu way ka soo saaraysaa. laakiin dee gurigaagu xurmad buu leeyahay. adoo sharaf laa dhex degan, cadowga kuu dhex jiifa, adun baa og. askariga marka baahida aan u qabno waxaan uga baahi badannahay gabadh Soomaaliyeed oo qiimo leh, oo iimaan leh, oo waddan rabta, oo dal jecel, oo dhahda cadowgii halkan uu ku jiraa. marka waa in taas horta aan ka shaqeyno. waxaan u baahannahay cadow in loo midoobo maahaane aan cidna keligeed waxba ka qabanayn baa jira. sidaa darteed waa inaan u midownaa. culimadu waa inay hadlaan oo ay bulshada la hadlaan. ganacsatadu waa inay diyaargaroobaan oo cadow waa in iska qabto loo diyaargaroobo. gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta leh waa in ay diyaargaroobaan oo ay dagaal u diyaargaroobaan. dalka si loo xoreyn lahaa ay u diyaargaroobaan. dhalinyaradu waa inay diyaargaroodo. askariga Soomaaliga ah ee dagaalamaya waa inuu ogaado in uu haysto taageero, inuu haysto bulshadiisa ka haysto. waxaan rabnaa garsoorka in isbeddel lagu sameeyo, dhaqaalaha in isbeddel lagu sameeyo, maamulka isbeddel lagu sameeyo. ma aha dadka hadduu systemka xun yahay systemka in la toosiyo. haddii qofka uu yahay qofka waxaleynayana qof ka fiican oo walaalkiisa oo ahalkiisa la keenaya. saa darteed waa inuusan helin qofka wax khaldaya ama amniga ha ku dheero, ama dhaqaalaha ha ku dheero, ama dhaqanka ha ku dheero. qofka dawladdu ay u aragto inuusan qofkan meeshan ku habboonayn waa la bedelayaa. marka la bedelo yaan la soo raacin, yaan loo hiilinin, yaan la garab istaagin. dhaqanka Soomaaliga waayahan dambe kharibnay kaasaa ka mid ah
oo dowladda jileeceeda uu keenay. Marka waxaan rajaynayaa dowladnimada saas ay noogu adkaanaysaa, sidaas ay ku wanaagsanaanaysaa. aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.